haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh. sheekadani waxa ay ku tusaysaa in bini'aadamku uusan arag nimcada uu haysto ee uu eego midda ka maqan. waabaa waxaa jiri jire nin maskiin ah oo waxba aan haysan. ninka waxa uu xoolo dhan ka qabay calal wasaq ah ee uu xirto. maalin maalmaha ka mid ah ayaa asagoo geed hoos harsanaya ayaa geedkii waxaa soo fuushay shimbir. waana xilligii ay shimbiruhu hadli jireen. shimbirkii ayaa ku yidhi ninkii geedka hoos fadhiyey, dad khayr waa ugu daraa, dad khayr waa ugu daraa, dad khayr waa ugu daraa. ninkii maskiinka ahaa ayaa yidhi, ilaahow khayr igama daree, ilaahow khayr isii. berigii dambe ayaa waxaa meesha soo maray oo arkay ninkii maskiinka ahaa gabar taajirad ah oo aad u qurux badan. gabadhii ninkii markay aragtay bay u timid oo ka naxday gaajada iyo duruufta ka muuqata ninka iyo dharka wasaqda ah ee uu xiran yahay. markaasay u naxariisatay oo kaxaysay. waxa ay geysay xaafaddii si ay u kaalmayso oo u daaweyso. cunto fiican ayay siisay. calalkii wasaqda ahaana waa ay ka beddeshay oo dhar qurxoon bay siisay. baryo kadib baa ninkii raystay oo qurux badnaaday oo ciilay. markaasay is yidhaahdeen aan isguursano. waa yahay bay tiri gabadhii, laakiin hal shuruud ah ayaan kugu xirayaa. wax allaale waxaan maal leeyahay iyo xoolo dhan adiga ayaan kugu wareejinayaa marka laga reebo qolkaas waxa ku jira. haddaad i tiraahdo ii fur qolka ama itus waxa ku jira, madaxayga ayaa isiinaysaa oo waad i furaysaa. waxa qolkaas ku jirana adiga ayaa leh, waad qaadan kartaa. laakiin waxa kale oo dhan maalkayga iyo xoolahayga waan kaa reebanayaa oo waad iga dhex baxaysaa. markaasuu yidhi hawraarsan, haye. sidaas bayna ku heshiiyeen. odayaashii xaafadda ayaa loo wada yeeray oo markhaatina looga dhigay heshiiskoodii, waana ay isguursadeen. wixii la jooga baa maalin dambe ayuu ninkii is yidhi, talow qolkaa maxaa ku jira? ma dahab baa ku jira? maxay u diidaysaa? inta uu u yeeray islaantiisii ayuu ku yidhi, naa qolka ii fur, in waxa ku jira aan ogaado ayaan rabaaye. naagtii ayaa ku tidhi, ninkaygiyow sidaa ha yeelin. markaasuu ku yidhi, maya, ii fur qolka, intuu ku adkaystay go'aankiisii. odayaashii xaafadda ayaa la isugu yeeray, kadibna qolkii baa la furay. maxaase ku jira? waxaa ku jira calalkii wasaqda ahaa ee laga beddelay ee uu xirnaan jiray markii uu maskiinka ahaa. siduu heshiiskuba ahaa ayuu ninkii intuu maalkii isaga wareejiyey gabadhiina ku furay meesha calalkii wasaqda ahaa ee uu lahaa hore u soo xirtay buu ka soo dhaqaajiyey xaafaddii asagoo gacmo maran. geedkii uu hoos fadhiisan jiray markii uu waxba haysan jirin ayuu iska soo hoos fadhiistay. shimbirkii ayaa soo fuulay geedkii oo ku yidhi, dad khayr waa ugu daraa, dad khayr waa ugu daraa. markaas buu ninkii ku yidhi, waa runtaa, waa runtaa. sheekadani waxa ay ku tusaysaa in bini'aadamku uusan arag nimcada uu haysto ee uu eego midda ka maqan. haddii uu qofku garan waayo nimcada uu ku dhex jiro, waa nasiib daro. sida ilaahay inoo sheegay, haddii aad nimcadan idin siiyey ku mahadnaqdaan, waan idiin siyaadin. laakiin haddii aad ku kufridaan, cadaabkayga waa uu daran yahay. cadaabka ilaahayna siyaabo kala duwan ayaa uu ugu yimaadaa qofka. daawade, haddii aad danaynayso inaad barato luuqadda ingiriiska, waxaa diyaar ku ah macallimiin khibrad u leh oo u dhashay luuqadda oo kaa saacidaya kuguna baraya muddo gaaban gudahooda. haddii aad danaynayso, linkiga description-ka ku jira ku dhufo, kadib Facebook ama Gmail kii kuu fudud ku gal. macallimiinta badan ee meesha ku jira, midkii aad isleedahay wuu ku anfacayaa ka dooro.
adigoo fiirinaya qiimaha iyo khibradda iyo saacadda ugu wanaagsan. haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh